daawadayaal waa fanaan Soomaaliyeed 10 wadan ayuu isku marayaa si uu naftiisa u badbaadsho bishii Maars ee aanu soo dhaafnay 2013keedii 12 bishaas ayuu ka soo boqolayaa caasimadda qaranka Soomaaliyeed ee Muqdisho 10 wadan ayuu soo marayaa oo kala duwan naftiisa ayuu habiimeynaya asaga oo ka cararaya dhibaato iyo dilal iyo cabsi fara badan oo soo food saartay dhulkiisii hooyo uu la joogi waayay lixdii bishii afraad ee haatan bishaan aan ku jirna ayuu dalka Mareykanka soo galaya Minneapolis ayuu ku sugan yahay xabsi ayuu soo maraya wuxuuna igaga warramayaa sababta dalkiisa iyo dalkiisa ugu dhex noolaan waayay iyo cabsida iyo cagajuglaynta soo food saartay iyo cidda waliba ka dambaysa arrintaas iyo meesha uu soo maray iyo waxa uu ka rajaynayo dowladda Mareykanka oo uga doortay wadamada kale ee dunida ku yaala waa kuma ayaad isweydiinaysaan وعن آسف عن تقانانه وفنان عبد دانتو أو هاتن خدك دالك مريكان كتوس جرا فنان أدبن كوسر وين يا شرفي كلام أنا إيتاي ورئيس جايوه الرئي أو عضا إلى نلو ذاك شلو أدبن كوسر هذا يارك على تحفيد برامجكم لو هاي أنا كنت فرح سنة أنا مركوري شيء maaragtay aad wareysiga yeelato waa gartay cabdiyow waa ku mahad celinaya doctor anoo halkan Brit Somali TV ma jeclin inaanu dhiirigelino muddo waxa la yiraahdo tahriibka laakiin waxa tahay marxaati nool 10 wadan ayaa soo martay marka ugu horeysay intaanan u gudbinin waxa dadkaagii iyo dalkaagii ka soo waday adigoo nin caano mujtamaca dadka sumcadda ku dhexla aad ka mid tahay aan ku weydiiyo marka hore haatan Mareykanka ayaan ku suganaa tiri Minneapolis lixdii bisha soo gashay xabsi baad soo martay bal arrinta iga dhac marka hore walaalkii aad mahadsan tahay sidaad sheegtay dalkayga waxaan uga imitay waa nabadgelyo xumo ama amni darro oo shakhsiyan ii soo food saartay taasoon waa run baan doontaa inaan nafteeda ku waayo wax karo dhibaato karo gooni ka sheeganayo ma jirto laakiin sidaa wada ognahay dalkeena dhibaato waxaa ka jirta dhinaca nabadgelyada taas oo lagu beegsado dadka dhalinyarada ama imeedka ee magaalada ku nool ay ka mid yihiin dadka maaragtay waxtarka bulshada u leh runtii taas iyo dhibaatooyinkaas aan ka sheegayno dalkeena maaha kuwa qarsoon kuwa loo ogyahay waaye aan dhihi karaa sanooyinka ugu dambeeyey dadka waxay ku nool yihiin cabsi gaar ahaan dadka bulshada waxtarka u leh maalin kasta waxaa la dilayaa qof waaya cabdi waxaan rabaa qaybtaas inaan dib ugaga imaado ku saabsan cabsida iyo dhibaatada waxaan rabaa marka hore iga warrantid 10kii bishii March ilaa iyo haatan 6dii bishii Abriil inta u dhaxaysay khatarihii ugu waaweyn aad wajahday intaad taariikh ku jirtay dabadeedna si weyn baan u eegi doonaa gaar ah cabsida walwalka iyo taleefanada lagu soo diray iyo codadka waliba aad ila wadaagtay oo dhageystay argagaxa leh soo dhawow marka hore Soomaaliya ka soo tagtay ilaa iyo Mareykanka soo socotay maxaad la kulantay meeqa qof baad ahaydeen walaalo aad baad mahadsan tahay runtii horta ani shakhsi ahaantay dhalinyaro kalaan isla soconay oo ajaanib iyo Soomaaliba leh runtii dhibaatooyinka jidka marka la marayo ma ahan kuwa sahlan kuwa aad u badan oo maaragtay caqabado aad u xoog badan ayaa qofka soo food saaraya oo ay ka mid tahay wadamadan dhex soconay luuqadooda ay ka mid tahay dhaqaalaha ay ka mid tahay caafimaadka ay ka mid tahay dhibaatooyin noocaas aan la kulannay intaas waxaa loo dheeraa xabsi aanu wadamada qaar markaan soo marin aanu kala kulmaynay ummad burcad ah oo maaragtay mararka qaar jidka kala baabuurta aan saarana mararka qaar dhahaya waanu dilaynaa ama lacagna siiya dhibaatooyinkooda lagama sheekeyn kara aad iyo aad buu badayay magarata waayahay haddii aynu eegno markaad Mareykanka timid 6dii bisha ayaad soo gashay Mareykanka dabadeedna waxaa jira nidaam xabsi oo dadka la mariyo process inta xaaladooda lagu ogaanayo intaan gudaha wadanka loo soo deynin halkaa maxaa kala kulantay iyada laftigeeda wallaahi runtii annaga waxay ugu darneed waxay ahayd
maraykanka markaan dhinaca waddanka deriskii markaan ka imaanay way nagu adkaatay inaan horay ka galno nasiibkayga muddaan laba habeen iyo labadoodii maalinba waxaan joognay derbiga dhinaca maraykanka dhinaca kale kaasoo dhaxan iyo qabow badan baa meesha ka dhacay iyo rafaad badan cunto iyo biyo midna ma jirin dadka liita oo waxaa ku jiray dumar iyo carruur leh runtii dhibaatooyin fara badan baa halkaa lagala kulmaya ma garanaysaa marka xagga baadka dhinaca maraykanka haddaa usoo gudbo horta maraykanka nidaam baa jira lasoo maro ayagu sidooduba aad bay noo soo dhaweeyeen gaar ahaan kuwa qolada xuduudaha si fiican bay noo soo dhaweeyeen wayna qaabileen wayna naga qaadeen intii iyo qabowgii markaas laga yimaado nidaam baa lasoo maraa qof dadka waxaa la siiyey waa la xidhaa oo iyaga laftigooda way xidhaan walow ay nasiibta dadka qaar aan la xidhinba marka taas waa nidaam ayaga u yaalla oo la maro laakiin xabsi oo gacanta iyo dhibaato lagala kulmaya ma aha xero qaxooti oo kale miyaa marka may xero qaxooti maaha walaal waa sida caadiga ah marka hore waxaa lasoo maraa laanta cusub socdaalka migrationka meeshaas process baa lagu soo maraa qofka wareysiye iyo maaragta wuxuu yahay backgroundkiisa lagu ogaadaa marka kadib meelo kale ayagana la isu sii gudbiyaa laakiin waxaaba yaraatay dhibaato oo kala kulana ma jirto si fiican baana lagu soo dhaweeyey weliba meeshaas qofku markii lasoo baaro dembi waxba uuna lahayn sida warqadaha iyaga ku cad waxaa lagu leeyahay kusoo dhawow america kusoo dhaweynayaan askartu welcome erkay kuleeyihiin marka saasi wax u dhaca markaad soo martay intaasoo duruuf oo 10 waddan soo marto lagu yiri welcome to America way kaaga duwanayd habeenada dhaxanta qabowga iyo duruufaha adag aad marti gelinaysay arrinta balka warayada wallahi marka intaas lagu dhacay xabsi baa ka dambeeya oo nidaamyo waxaa jira ayaga ay leeyihiin homeland security oo dalka marka ma ahan wax ma garanaysaa markaas aad ku laaqoojinayso meesha adiga oo jabsan baa laga soo baxayaa oo dhibaatooyin fara badan soo maray oo haddana nidaamka laga sii marsiinayo dee gacan calool ku jirto baad iska tahay nin dee dad sharci kusoo galayna ma tii marka hawlo badan u yaallaan baa tahay maaragtay farxada badan waxaan rabaa inaan u gudubno ubuucda waraysigeena ugu muhiimsan xubintiisa waxaad dhegeysiisay cod lagu soo duubay adiga kugu socda oo argagax leh cabsi leh aan laga seexan karaynin in badanna aad ka seexan kari weyday oo kugu kalifay inaad soo tahriibtid marka hore intaan codkaa u gudbinin bal bulshada Soomaaliyeed ee Brit Somali TV ku xiran waxaad ogaga dhacdaa maxaad u soo tahriibtay yaa ku cabsi geliyay yaa dambi yaa ka dambeeyay inaad soo tahriibtay taxfidoola waa mahadsan tahay aniga sababta ugu weyna dalkayga hoosatay ku horta waa amni darro shakhsiya nafteeda amni darradaas la wada ognahay waxaanu kala kulannaa kooxaha argagixisada nabadii horumarka Soomaaliya kasoo horjeeda dadkaas oo wada ognahay inay beegsadaan dadka bulshada qiimaha iyo waxtarka u leh runtii aniga codadkaas iyo fariimaha ay soo gaarayay inta badan ma aanan rumaysan jirin ma dhayrsan jirin يعني ما أنا أقارن دين واحد صح إلا ما كي تبدي أي وحي أي مارتي خطرتي أي مركز طول سفر كان على ملك إمامه أن مارتي فريبها ما عاسي سوكارية عد كاس أنا ما سوكارتي مدة وحاول تري يبتوي قارة أو إن مسكحي سؤال بدن سويتي وأنا تريمك حتى خطر إنه هو شيء اللي قلت لي قد ما ناس بس على ما oo nafta lagu dhaafinayo taasina waxay sababtay inaan halis kale nafteeda geliyo si aan badbaado u helo marka kooxahan argagixisada sheegaysid fahankaygu waxa uu yahay ururka al-shabaab baa ujeeda si fiican codka dib baan rabaa inaan ogaga imaado arrinta kale ee ku saabsan
taleefanada lagu soo diraya iyaga maxaa nooga sheegi karta والله runtii horta xamar marka la joogo muqdisho la joogo walaal waxa weeyaan horta qofka in la iska dilo iska fudud tahay in loo hanjibo way fudud tahay wax walba si fudud ayay ku dhacaan wejiyo badan baa xataa la adeegsadaa siyaabo kale la isu dila ma ahan oo keliya maaragtay qaababka maaragtay qofku xataa uu ka fikirayo meelo badan waayo codkan hadda waxaa ku jira ama annagaa ku dilayna ama askar baan ku adeegsanayna cod kale ku adeegsanayna taasoo micnaheedu xataa ay suurtagal tahay in qof kale intii wax la siiyo ama siyaabo kale in la igu dilo oo la igu sameeyo ama si kale waxa weeyaan haalistaas marka way badan tahay waa xataa in maaragtay si kale ama xataa aad ula kulanta dhibaatada laakiin inta badanna dhibaatooyinka nimanka geysa nimanka argixisada dalka soomaaliya dadka dhibaatada ku hayaan maalinka sabtidhamida iyo maxalle dadka waxtarka maaragtay dilaan cabsina geliyaa sidoo kale maqaalaha jira xataa ay lagu soo qaateen oo baraam bulshadeedii falkaygii iyo maaragtay wacyigelintii aan waday bulshada soomaaliyeed aan waday ay la igu fidaynayo oo diinta lagaga saarayo la igu gaalaynayo oo ay iga sameeyeen waaya marka aynu eegno waxaa laga yaabaa in dadkaana daawanay yidhahdaan fanaaniin fara badan ayaa dalkii hooyo joogta gaar ahaan caasimadda oo dad fara badan oo fanaaniina oo qaarkood anugu si waxaan u garanayo khiyaara ay joogaan waa maxay waxaa adiga sidii gaarkaa lagugu tilmaamsaday baan isleeda walaalow taas danka ka jawaabo sida wada ogna horta aniga dhalinyarada magaalada muqdisho fanaaniinta hataa marka la yidhaahdo waxaan ahay nin baraha bulshada aad u isticmaala sidoo kale waxaan kaga duwanaa shaksi hay-adaha dowladda ka tirsan oo laga soo bilaabo 2018 ka tirsanaa dowladda oo shaqaynayay ayaan ahaa intaas haysiga waxaan ahaa nin dhalinyara oo siyaasadda jecel oo kamid ahaa dadkii maaragtay ololeyaashii dalka soomaaliya doorashooyinka ka dhacay oo dhan inta waan ka dhex muuqday marka waxaa la dhihi karaa in arrimahaas in la iisoo raaco aan ayaga liddi ku ahaa maadaama aniga afkaarteeda iyo waxaan aaminsanahay si public ah maaragtay bulshada ula wadaagay oonan ka gaabsanaynay haddii ahaan lahayd dhibaatooyinka dalka tusaalahaan qaraxyada oo kale waan ka hadli jiray xoolan haddii dib loo baaro waan helayaa ma aanan dhiirigelinaynin maaragtay ma aanan ku faraxsanaan jirin wax walboo dalka ka dhaca way dhibi jirtay waana ka hadli jiray marka qof fikradiisa iyo waxuu aaminsan yahay mar walba ay cad yihiin oo bannaanka yaalaan taas ayaan uga duwanaa maaragtay fanaaniinta kale marka inaad si cad ugaga hadashay saad sheegaysid aadan ka gaabsanin tacadiyadii dalka ka dhacay qaraxyadii al-shabaab ay geysteen inaad si public ugaga hadashid awgeed iyo wada shaqayntii dowladdii hadda tan ka horreysay oo aad sheegtay inaad xubin ka ahayd ayaa lagu beegsanaya waa leeda ها طبعا ها صوبت aniga inta badan qof dadku waa dareemi kartaa isku mid maaha waxba haddii waxaan sheegayo oo hadda aan ka hadlayno dhammaantood waxyaabo bulshada soomaaliyeed markhaati ka tahay oo caddaymahooda iyo maaragtay tusaalena si meel maha weeyaan marka ma aha inaan waan xustaa dad qaraxii ugu dambeeya sooba ka dhacay maamulka banaadir guddigii maxaan dhahay amniga si iskay ayaan ugala shaqaynayay waxaa kamid ah dadkii dhibaatooyinka dhismayaasha kusoo dumay dadkii ka shaqaynayaan ahaa marka ma u malaynaysaa dadka dhibaatada intaa lee geystay in qofkii dadkii ay dhibaatada u geysteen meydadkii wax ka guraya caawinaya inay axsaan u samaynayaan ma u malaynaysaa waa gartay codkan aad dhegeysiisay cod aad iyo aad argagax u laha weeye ma raba inaan bulshada usoo dayno halkaan usoo dayno dabcan baaritaan ayaad socdasaan aad ii sheegtay iyo howlo adiga kuu gaara maxay nuxunka hadalkaas uu daaran yahay ood bulshada u sheegi kartaa adigoo maanta wallaahi bulshada soomaaliyeed horta waxaan nuxurka hadalka aan dhihi lahaa horta dhibaato fara badan baa lagala kulmaa dhibaatooyinkan waxaan sheegayaa codka lagu soo duubo ku cabsi gelinaan sheegay cabdo codka
horta codka nuxurka uu daaraya horta keliya waxa weeyaan aniga sidii maaragtay nafta laygu dhaafsinaa nuxurka oo markaan cabsidaas intaan la eg laygu abuurayo waxa weeyaan in aniga maaragtay la idiro ayuu ahaa anigana go'aan waxaan qaatay inaan nafteeda badbaado wax nafta bini'aadamka wax ka qaalisan ma jirto waaya waa gartay waxaan rabay inaan wax kaa weydiiyo wadamo fara badan ayaad martay 10 wadan ayaa isku martay Soomaaliya marka laga reebo 10 wadan ayaa isku martay maxaad Mareykanka uga dooratay oo isku tiri halkaas waad ku badbaadi kartaa Ilaahay baa badbaadshay wallahi runtii horta dalka Mareykanka sidaan ognahay waa dal aad u horumarsan oo maaragtay dhinaca shaqa abuurka aad u wanaagsan wadamada adduunka ugu daweyn ama ugu awooda badan waaye wadan fursado badan yaallaan waaye waxaan ku doortay inay keliya tahay wadanka keliya oo aan nafteeda wax uga bedeli karo si aan nolosheeda caadiga usii wato aan lahayn shaqaad aan la inaan xirfadaha iga kale aan sii xoojiyo marka taasaan ku doortay runtii Mareykanka markaan midna aad ii soo dhaweyn طبعا Mareykanka markaad tagtay nidaam iyo process baa jira rajaynta laag baad ka qabtaa in markaas hadda gudihii waa lagu soo daayay magaalada Minneapolis ayaad ku nooshahay in sharci lagu siiyo sharci hadii lagu siiyo hawshaadii iyo fanaanimadii halkaas ka wadanaysaa mise arrintaas waa gabagabaad leed wallahi runtii horta aniga xafida walaalo nin dalkiisa markuu joogtay faa'iideysto wax bartay baan ahay nin xirfado shaqala ahay nin wax bartay oo waxbarashadiisa asaasiga bilaabo tahay baan ahay kulluun dalka waxaa weeye inaan ka faa'iideysto nolosheeda aan sii hormariyo xirfadaha iga gaarka ayada sidoo kale dhaqankii sugaanta bulshada Soomaaliyeed halkan ku sugan ee qurbo joogta dadka dhaqanka iyo afkii lagu dhiirigeliyo oo la baro wacyigelintii halka koodee uma rabaa inaan halkan dhaqanka sii wado xirfadaha iga kale iyo maxaa wixii gaarka yaana ku shaqeeyo adoon gaado soo taas sharciga aan de kulay aniga nin dalkiisa dhibaato uga soo cararayaan dalkiisina dadbi ka gelin dalkaana maxaa lahay dambi la'aan yimid waxaan rajaynayaa boqolkiiba boqol dalka Mareykanka in maaragtay lagu soo dhaweyn doonto dowladda Mareykanka sharciga si doonto waa ku rajaynaa waayahay adigoon magacii sheegayni waxaan la socdaa dad fara badan oo caan ah inay laftigoodu safarkaas Soomaaliya ku weeriseen qaar ka soo horeeyay qaar wada socoteen qaar dib ka yimid xaaladooda sawir guud ka bixi kulligood adigoon qofna magaciisa sheegay wallahi horta adxafido dadka jidka soo maray waa isku wada xaqo waxa kala duwan yihiin ma lahan wax maaragtay cid gaar oo lagu bartilmaameysanaa ma jirto dhowrba hadda nin iyo nasiibkii ma garanaysaa marka wadankaana dee wadan ay xuquuq ka jirto waaye qof walba dalka Mareykanka jooga dadku way siman yihiin dadka kale ka qurux badan ka xaquuq badan ka sharaf badan ma jirto nin walba siduu ku yimid uu ku joogaya hadduu Ilaahay yiraahdo wax dhibina ma jiro kolley waa nin walba dee nasiibkiisa insha Allah waa gartay waa ku mahadcelinayaa boqolkiiba boqol daawadayaal fanaanka caanka Cabdi Dhaanta ayuu ahaa oo dalkiisii amni darro uga soo cararay oo suu igu sheegay horay teleefonkaba haddii Soomaaliya ay nabad ahaan lahayd meel uu ku doorsado aysan jiri lahayn hase yeeshee teleefonka codkaas markaad dhegaysatid unbaad waxaad garan karaysaa ninkan dhalinyarada ah wuxuu u joogi waayey u jiifsan kari waayey marka lagu yiraahdo kafantaadi waa diyaar goordhow baanu kurka kaa jaraynaa khatar iyo halisteeda ayay leedahay boqolkiiba boqol oo mahadcelinaya bishaaro shirkadda Minara Homes waxay ugu bishaareynaysaa dadweynaha Soomaaliyeed inay guryo iibay uga hayso magaalada Nairobi ee dalka Kenya guryahan oo ah kuwa casriya isla markaana si qurux badan lagu dhisayo shirkadda Minara Homes guryaha ay dhisayso ayaa waxay sidoo kale leeyihiin goobaha cibaadada iyo waliba swimming poolka u kala go'an ragga iyo dumarka si fudud hanti ku yeelo adigoo lacagta si in yar iskaga bixinaya hadda waa shirkadda Minara Homes inuu say laga bax oo laga ilbax oo laga tag
كار حولات لا تغي ايميل لا تغي ولا تغي waxa wax kasta fududeeyay transfer galaxy app ayaa jiro appka ayaa soo degsadaysaa markaad appka soo degsato oo telefoonkaaga aad ku shubtid kaliya ha isku diraysid lacagta waa sahal wayna ka raqiisan tahay xawlaad kasto markaad lacagta koowaad aad diraysid